Assalaamu calaykum. Dagaalkii labaad ee adduunka. Sida la wada ogyahay, dagaalkii labaad ee adduunka waxa uu ahaa dagaal caalami ah. Gabi ahaan waxa la tixgeliyaa markii ugu dambeysay waxa uu bilowday taariikhdu markii ay ahayd 1939 wuxuuna dhammaaday 1945. inkastoo ay jireen khilaaf dhanka qaaradda Aasiya inuu ka mid ahaa dagaaladii Aasiya ay ku jirtay waqtigaas ka hor 1939 una ka mid ahaa dagaalka labaad ee adduunka, taas oo ugu badnaa wadamada adduunka kuwooda ugu awoodda badan, kaas oo ku salaysnaa laba xulafo oo iska soo horjeeda. waxay taariikh dagaal oo baahsan si toos ah waxa ku lug lahaa in ka badan 100 milyan oo qof iyo in ka badan 30 wadan oo kala duwan. wuxuu burburiyay dhaqaalo tiro badan, warshado iyo sidoo kale awoodo cilmi, kaas oo markii dambe noqday mid u dhaxeeya khayraadka rayidka iyo militariga, kaas oo calaameeyay dhimashada rayid isugu jira the Holocaust oo gumaade iyo isticmaalid ugu weynaa bombooyinka loo yaqaano air power bomb iyo markii ugu horeysay ee la isticmaalo dagaal hub nuclear ah. natiijada waxa lagu qiyaasaa inay ku dhimatay dad dhan 50 milyan ilaa 85 milyan. dagaalkii labaad ee adduunka wuxuu dhigay khilaaf badan oo taariikhda aadanaha ah. boqortooyadii Japan ee loogu talagalay inay xukunto waqti sii horeysay dagaal kula wareegtay Jamhuuriyadda China sanadkii 1937, laakiin 1 Disembar 1939 waxa bilowday duulaankii Poland ee Jarmalka. bayaankii xigay ee dalabkii dagaalka Jarmalka ee Faransiiska iyo boqortooyadii Ingiriiska laga soo bilaabo dabayaaqadii 1939 ilaa bilowgii 1941 waxaa jiray olole iyo cahdiyo. Jarmalka ayaa aasay isbahaysigii dhidibka Axis, awoodaha Yurub iyo weerarka midowga Sofiyeeti ay ku wada jiraan Itaaliya iyo xasuustii baasiinkii Ribben. Japan ayaa ku soo biirtay Axis weerarkii United Yurubta ee badweynta Pasifika, furutaankii dhaqsiyaha badnaa ee galbeedka Pasifika. Jarmalka iyo midowga Sofiyeet oo dhulalka la dhaxeeya Yurub, iskaashiga Yurub oo ay ku jiraan Poland, Finland iyo wixii la mid ah. Ingiriisku waxay ahaayeen awoodda xulafo ee ugu weyn dagaalka ka dhanka ah Axis. sidoo kale dagaal ka socday waqooyi iyo bariga Afrika, sidoo kale dagaal muddo dheer socday ee Atlantic sanadka June 1941. intaas ayay daawada maanta naga joogtaa. fadlan subscribe saar oo ku soo bir, like na saar. mahadsanid.